waa dhismaha masjidu Abubakar as-Siddiq waxaana la doonayaa in dib loo dhiso waxaa goobtaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle waxaana walaalaha muxsiniinta ay ku nool daafaha caalamka iyo dalka ay ka codsadeen in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidul Abubakar as-Siddiq ugu horeen waxaa goobtaasi ka hadlay ina faahfaahiyay Sheekh Ciise Bari oo ka mid ah howlwadeennada masjidka Abubakar as-Siddiq masjidu Abubakar as-Siddiq waxaa inoo timid haddana taalo 5 kaariko oo dhagax ah waxaa inoo maqan 7 waanoo maqan tahay labo maxaan ku iraaday 73 kiish oo shamiinta ee maanta ayna soo gaartay hadda ayna soo gaartay saakin waxaana soo gaartay 13 kiish oo shamiinta ah waxaa kala jiro 280 kiish oo shamiinta wayna xareysan tahay baad waxaanoo dalban labo ayaanoo dalban iyo hal kaariko jaay ah meesha ayaan sii joognay marka waxaan rabnaa walaalaha muxsiniinta ah ayagoo meesha ka sii ambaqaadayo intaas wax gacantayna ku jiro waa wixii balanqaad badan waa jiraan laakiin wili mana soo gaarin laakiin inta gacantayna hadda ku jirto intaas waaye marka intaas ayay ka sii badan ay ka sii laga sii ambaqaadaa nin kasto muxsin oo Ilaahay wax u dhiibay ugu dambeyn culamadii ka soo qayb gashay ayaa walaalaha muxsiniinta ah weydiisteen in masjidkaasi si degdeg ah lagu dhiso maadaama ee lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Allah wuxuu yiri wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni insu ma abuur illa waxaanu abuur in aniga caabudaan ayu Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay waxa waajib ah meelaha Allah lagu caabudo in laga qayb qaato oo la garab istaago waxay ka mid tahay acmaashatan ugu fadliga badan ayay ka mid tahay wax yar baa Allah ka dhigay qofta kula baxo masjidkan ku baxsato Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta maalin ay kaga baahi badan yihiin ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siinaya sidoo Allah baleeyahay subhanahu wa ta'ala wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu waxaad bixisaan oo waxuun hadaad bixisaan Ilaahay waa bedel ayuu idin siinaya subhanahu wa ta'ala masaajidkan magaciisa laga dhigay Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala Abubakar sidoo deegsi u ahaa oo diinta garab istaageeda wax badan ugu bixiyay magaca awgiisa ayadan ku ixtiraamayna insha Allah ta'ala in lagu soo deeqo fara badan si masaajidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo dhiso nabi wuxuu yiri muxuu qofkii dhiso guri maartay guriyada Ilaahay kamid ah qofkii dhiso Ilaahay wuxuu guri ugu dhisaa jannada marka walaalayaal inta wax la baxday waa u duceynaynaa Ilaahay miisaankooda xasanaadka inuu u saaro Ilaahay inuu caafimaad siiyo Ilaahay inuu siiyo caruur baariya inta meesha ay joogaan amni iyo waakay horumar inuu Ilaahay ku siiyo hadii ay qurbaha tahay iyo hadii ay wadanka tahayba inta wax la baxday oo dhan Ilaahay meesha ay ku uuman yihiin Allah ka waraabiyo inta wax la bixi doonto oo waxba maanta yaani intay waxay dhiibtana aanan haynin horta Ilaahay wax uu sahlo qofka wuxuusan dhiiba aanan haynin Allah wax uu sahlo wuxuu baxsada Allah soo geliyo waayo Ilaahay ka hadlay wax la bixiyo wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah marka cida aan waxba haysanin Ilaahay wax uu dhiibo kuwa yadiilsanayeen in ay wax bixiyaan Allah ka soo qaado waxa uu harana Allah u barakeeyo inta ay baxsadaan miisaankooda xasanaadka Allah u saaro Yusuf Abubakar Ibrahim 5 Somali TV magaalada Jowhar